nabigeenu wuxuu yiri salawaatu rabbi wasalaam alayhi halaag iyo hoog iyo aafo waxay u sugnaatay ruux been sheegaya wuu sheekaynayaa been buu sheegayaa si uu dadka uga qosliyo nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam saddex goor buu ku celiyay halaag buu leeyahay waa u dhamaatay imisa shaqo ka dhigatay inay dadka been ugu maadeeyaan inay majaalista ku maaweeliyaan imisa mawaaqic u furatay imisa website u furatay imisa qolol u furatay imisa muxuu ahay social media been iyo kadib dadka ku maaweelinaysa calashaan in lagu qoslo ama dad dhageysta ay helaan ya dad badan oo ku xidhmay inay helaan calashaan beenta sheeg حلده شيكه النبي وحده صلى الله عليه وسلم هلاك يا ويل بيليهم برسولك صلوات الله وسلامه عليه ساس دراديد بنت اسكتر مؤمن باتهي مسلم باتهي الله باد رميسنتهي اخرات اسعتا ربك باد لكل بدونتا قبري باد قلي دونتا وحن ودنا ولا سقدب ايمان دونا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد كلمه كاسو بخدا ديوانكي كتالا مالنت قيامدانا لوغو سو هردغي دونا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ديوانكاغي اخر بين تفكتا markaad maalinta qiyaamada u tagto oo isxisaabi lagu yiraahdo xageed gali doontaa maalinta qiyaamada ma siyaasad iyo kursi baa wax ku tari doona ma ganacsi baa ku badbaadin doona ma maaweele iyo sheeka ku badbaadin doonta iyo dad inaad ka qosliso ittaqillah muumin baa tahay ilaahi ka baq diintaada ilaasho aakhiradaada ilaasho nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi habeenada kamida isagoo hurda nabigeena sallallahu alayhi wasallam laban malag baa u yimid way kaxeeyeen arrimo cajab badan iyo khalaa'iq ilaahay cadaaban oo midba si u cadaaban yahay ayaa nabiga la tusay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi habeenka waxyaalihii la tusay waxa kamid ah oo uu sii maray ruux inta qalka jeexdin lagaga bilaabo ilaa qadaadka la jeexayo haddana isha inta jeexdin laga bilaabo waxa la gaarsiinaya qadaadka haddana sanka inta jeexdin laga bilaabo qadaadka la gaarsiinaya dhanka kale haddana loo gudbaya sidii oo kale lagu sameeynaya inta dhankan la jeexayo oo lagu maqan yahay ayaa dhankani bogsoonaya markaas haddana loo soo noqonaya sidii lagu sameeynaya dhankana bogsoonaya kii kala lagu noqonaya sida lagu sameeynaya ruux sida u cadaaban buu nabigu maray salawaatu rabbi wa salaam alayhi habeenka isaga labadii malag ay waday buu weydiiyay war muxuu ahaa kani ya warkan sidan u cadaabayni muxuu ahaa waxay ku yiraahdeen waa ruux subaxdii intuu soo kalaho subaxdii buu gurigiisa ka soo baxaa kadibna been buu sheegaa beentu sheegay baa waxay gaadhaa jihooyinka gaadha afaaq afarti jihay u kala fidaa sidaas loo cadaabayaa u fiirso waaga nabigu sallallahu alayhi wasallam waxyigu dagayay ruuxa beenta sheega beenta qaabka uu u faafinaya qaab bidaa'iya buu ahaan jiray dad buu u sheegayaa dadkii baa sii qaadaya kuwa kale u sii sheegayaan qaab bidaa'iya bay ahayd maanta soo u fiirsa xaalku soo uga bedelan yahay adduunku iyo dhow wuxuu noqday tuulo la wada degan yahay wasaa'ilul i'laamkii baa isdaba maraya darafka adduunka wixii hadda ka dhacay darafka kalu yaala been buu saaka sheegaya ama maanta sheegaya ama caawa sheegaya social media ku tuuraya malaayiin baa daawanaysa telefishinadu galinaya malaayiin baa daawanaysa idaacaduhu ka sheegaya malaayiin baa daawanaysa beentiisiba aafaaqda iyo jihaadka kala gaadhay sidaas daraadeed qoliyuhu nabigu ka sheekeynayay buu kamid yahay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa laga yaabaa ruuxaasi inuusan qarad iyo ujeedaba lahayn kaliyeeta uun maad inuu la jeediyo dadka inuu maaweeliyo ama dan xun oo khabiisa inuu leeyahay saas daraadeed ma sahlana beenta iska ilaali haddaad ilaahay agtiisa wax ka rabto haddaad aakhiradaada u danaynayso haddaad adduunkaaga u danaynayso haddaad badbaado rabto beenta iska ilaali runtana ku dadaal waa dardaarankii rabbiga tabaaraka wa tacaala waa dardaarankii rasuulkaaga muhammad salawaatu rabbi wa salaamu alayhi
waxa uu keenaya iimaanka kugu jira iyo dhaqanka laga rabo waxa uu keenaya waay saas daraadeed ruux walba ilaahay ka baqo hana la iska ilaaliyo beentan shaqada laga dhigtay rasuulkeenu wuxuu inoo warramay sallallahu alayhi wasallam zamanka aakhirkiisa marka adduunku isbedelka ku dhaco oo qiyaamadu soo dhowdahay oo wixii wanaagsanaa isbedelo oo mujtamacaadku fasaadaan wuxuu rasuulku sheegay sallallahu alayhi wasallam isbedelada iimaan doona inay kamid tahay beenaalaha in la rumaysan doono kii runlowga ahaana in la beenin doono kii khaa'inka ahaa in la aamini midka aaminka ana in khayaano lagu xukumiyo khaa'in weeyaa la leeyahay nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam isbedelkaasi inuu adduunka ku dhici doono qaybo kamidana haddaynu la noolahay nacam beenaalihii waa ammaano yahay waa loo tahniyeedeynayaa waa loo qoslayaa lama qoonsanayo lagama xajiimoonayo khaainkii waa siyaasi waa madax waa xubin baarlamaan waa madaxweyne waa khaa'in shacabkii baa ku daba safan oo shacabka u garaacaya ayagii baa codkoodii siinaya wayna ogyihiin inuu beenaale khaa'inaya mawaasiintii isbadash isrogti kii runta sheegahayna waxa uu run kasta haduu sheego waxa la leeyahay kaasi waxa ma kala ogaa waa ka dhacsan adduunkii nabigu ka warramay baan joognaa salawaatu rabbi wa salaamu alayhi laakiin si kasto adduunku u fasaado isu bedelo mabda'a quraanka iyo sunnadu ka warrameen oo runtu inay fiican tahay laguna badbaadayo beentuna xunto lagu halaagsamayo marna isma bedelayso mu'minkuna taasa la doonayaa inuu iltizaamo ama siyaasada ku jiro ama ganacsi ha ku jiro ama xaalad kale ha ku jiro ittaqillaah rabbiga ka ba aakhiradaadana ilaasho